Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya 5tii sano ee ugu dambeysay waxay samaysay horumar ballaaran oo dhinacyo badan leh kadib markii uu si muuqata u kordhay heerka nabadda, xasilloonida iyo horumarka guud ee caasimadda magaalada Muqdisho. Waxaana maanta muuqda isbeddel la taaban karo oo ku yimid noloshii bulshada, ganacsiga iyo bilicda guud ee caasimadda. Dowladda, maamulka gobolka Banaadir iyo ciidanka ammaanka ayaa si wadajir ah u xoojiyay dadaallada lagu sugayo amniga, taas oo u horseeday in magaalada ay cagta saarto dhabaha saxda ah ee horumarka iyo amniga. Caasimadda maanta waxay u muuqataa magaalo tartan ay kula jiri karto caasimadaha kale ee dunida, iyadoo laga dareemayo koboc ganacsi, dhismayaal casri ah, waddooyin la dayactiray, iyo isgoysyada magaalada oo helay bilic iyo nidaam cusub. Ganacsatada gudaha iyo dibadda ayaa muujinaya kalsooni sii kordhaysa, taasoo sare u qaaday maalgashiga. Dhanka amniga, bulshada Muqdisho ayaa door muhiim ah ka qaadatay sugidda amniga, iyagoo bulshada Soomaaliyeed ay door weyn ka qaadatay la shaqeynta ciidamada booliska Soomaaliyeed. Intii lagu jiray sanadihii la soo dhaafay, dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxaa ka dhex abuurmay wada shaqeyn xooggan, taas oo saldhig u noqotay gudaha amniga iyo horumarka ee laga gaaray caasimadda. Shacabka ayaa si firfircoon uga qayb qaadanaya ilaalinta amniga, bixinta xogaha amni iyo taageeridda qorshayaasha dowladda, halka dowladdu ay sare u qaaday adeegyada bulshada, kaabayaasha dhaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta. Guud ahaan, Muqdisho maanta waa magaalo ku tallaabsatay isbeddel weyn, kana soo gudubtay caqabado badan. Nabadda, horumarka iyo wada shaqeynta dhow ee u dhaxaysa bulshada iyo dowladda ayaa noqday tiirarka ay ku dhisan tahay mustaqbalka caasimadda, iyadoo rajadu tahay in horumarka uu sii labanlaabmo sanadaha soo socda. Daawade, sidee u aragtaa amniga hagaagay ee caasimadda? Garsoor TV, magaalada Muqdisho.